qaabka labaad oo isna sidaasoo kale dhaqaale looga sameeya affiliate marketing waxa weeye waa in aad duubto muuqaal sida kan anigu hadda duubayo muuqaalka ama youtube-ka ku gudbi ama facebook-ka ku gudbi ama tiktok-ka ku gudbi inta ugu badan waa tiktok iyo youtube-ka lagu gudbiyaye waa inaad muuqaal sidan oo kale duubto adigoo ka hadlaya alaab ama adeeg internetka lagu iibinayo kadib qof kastoo muuqaalka daawada oo go'aansada inuu alaabta iibsadaa lacagta uu ku iibsado wax lagu siinaya xaddi sida lagu garanayo qofka alaabta adiga ka iibsaday waxa weeye marka aad maqaal qorto ama muuqaalka duubayso qofka waxaad siinaysaa linkiga meesha uu ka iibsanayo alaabta linkigaasna wuxuu noqonayaa mid adiga ku gooni ah oo lagu garanayo qofka adiga ka yimi ee alaabta iibsaday affiliate marketing waa sida weeye waana qaabka dhaqaalaha looga sameeyo aanu nimaadna markaa affiliate marketing iyo deegaanada Soomaalida affiliate marketing marka dhaqaale laga sameynayo waxa looga sameeyaa waxa jira shirkado fara badan ama company fara badan oo internetka ah oo alaabo aad xayeysiiso aad ka helayso shirkadaha aad ka helayso alaabo aad xayeysiiso laba loo qaybiyaa qaybta koowaad waxa weeye waa shirkado loo yaqaano affiliate network ama affiliate program affiliate network ama affiliate program waxa weeye waa shirkad alaabo fara badan haysa alaabaha iyadu ma laha oo alaabaha iyadu iibimayso laakiin alaabaha waxa leh shirkado kala duwan kadib shirkadahaas ayay alaabahoodii oo dhan isu keentay kadibna waxay adiga ku ogolaanaysaa alaabaha kuwii aad rabto inaad suuqayso kadibna aad dhaqaale ka samayso dadku markay iibsadaan iyaduna sida adigoo kale maadaama ay alaabtii shirkadu lahayn iyaduna sida adigoo kale ayay alaabahan soo ururisay kambaniyada kala duwan ay ka soo ururisay ee raba iyaguna in wax loo suuqeeyo bay lacag ka qaadaysaa shirkadaha waxa loo yaqaanaa affiliate network ama affiliate network way badan yihiin marka wax ka mid ah impact baa ka mid ah share sell baa ka mid ah way fara badan yihiin qaabka koowaad affiliate marketing horta dhaqaale looga sameeyaa waa qaabka iyadoo shirkadaha la helayo qaab labaad baa dhaqaale looga sameeyaa oo ah qaabkan waxa weeye kambaniyada iyagu internetka wax ku iibiya ama adeeg ha iibiyaan ama alaab ha iibiyaan ayaa iyagu waxay leeyihiin qaab alaabahooda dadku affiliate ahaan ugu suuqin karaan kadibna qof kasta oo alaabta qof intuu gaarsiiyo qofkaas iibsado inay khidmadaas siiyaan iyaga waxaad u fahantaa sida aniga oo kale ama adiga oo kale oo internetka meherad ku haysta oo alaab ama adeeg ku iibiyo kadibna dadka internetka jooga intay yimaadeen ay alaabihiisi suuqeeyeen oo kadibna markaa qofkii dee iyaga intay fududeeyaan iibsada qofka u fududeeyay dadka kale gaarsiiyey siinaya khidmad markaa sida way halka shirkadaha affiliate network ama affiliate program kale yiraahdaa ay iyagu la xiriiraan ganacsiyada sida aniga ama adiga oo kale internetka wax ku iibiya kadibna ay yiraahdaan alaabtaada aanu u fududeyno dadka affiliate-ka raba inay ku shaqeeyaan inay helaan kadibna ku suuqeeyaan annaguna khidmad yar baan ka qaadanaynaa khidmada qaabab dhowr lagu bixiyaa qofkaasna alaabta markuu iibiyo khidmad baad siinaysaa soo labada qaab way marka nimaada daba deegaanada Soomaalida shirkadaha iyo kambaniyada kala duwan internetka wax ku gadaa qaarkood way ogol yihiin in deegaanada Soomaalida dhaqaale looga sameeyo markaan leeyahay way ogol yihiin maaha waxaan internetka ka soo arkay aniga tijaabiyay qaarkoodna ma ogola in deegaanada Soomaalida dhaqaale looga sameeyo haddii aad leedahay maxaa Soomaaliya loo diiday in dhaqaale looga sameeyo ama si kale deegaanada kala duwan ee Soomaaliya degto loo diiday waxaa jira sababo dhowr qaarkood waa sharci qaarkood waxa weeye dadka alaabtan suuqeynaya danta ay ka helayaan dadkaas inay lacag ka helaan in kale muuqaalka ma doonayo inaan sharxo oo inuu muuqaalku dheeraado marka waxa weeye waxaad ku soo ururinaysaa deegaanada qaar waa laga ogol yahay waxaan leeyahay shirkadaha qaar way ogol yihiin deegaanada Soomaalida qaarkoodna ma ogola aanu imaado markaa kuweebaa ogolse kuweebaan ogolayn muuqaalkan kama gajoonay inaan ku dhaha taasaa ogol taasna ma ogola laakiin anigu mid ka mid ah kuwa aan arkay inay ogol yihiin waxaa ka mid ah mid la yidhaahdo hostinger waa website iibiya hostinada marka isagu wuxuu leeyahay qayb gaar oo isagu leeyahay oo adeegyadiisa lagu suuqeeyo haddii aad deegaanada Soomaaliya joogto alaabihiisa aad suuqayso meel kasta aad joogto isagu lacagta ku soo diraya ma keer garanayo meesha aad adigu markaad joogto mana laha xitaa wadamo uu ogol yahay iyo wadamo aan ogolayn shirkadaha qaar ma ogola waqtigan muuqaalkan duubay sida impact oo kale deegaanada Soomaalida ma ogola qaarkood share sell waad isku day kartaa haddaba su'aasha ugu weyn ama caqabada ugu badan halka ka imanaysa waxa weeye xitaa kuwa ogol iyo kuwa aan ogolaynba marka aad tijaabiso ee aad dhaqaale ka samayso sida baad dhaqaale ula bixi kartaa
sababtoo ah caqabada ugu weyn marka la joogo deegaanada Soomaalida kama timaado inta ugu badan in wadankaaga la ogol yahay iyo inaan la ogolayn. waxay ka timaadaa sidee baad lacagta ula bixi. markaan leeyahay sidee baad adeegii ama meesha internetka aad lacagta ka samaysay aad ula bixi, waxaan u jeedaa sidee bay lacagtii kugu soo gaadhaysaa. inta ugu badan shirkadaha affiliate marketing programmeska inta ugu badan wadamada ma xadidaan wadamada, waxay ogol yihiin badanka wadamada adduunka in dhaqaale looga sameeyo. taas waa war saxa. inta ugu badan shirkadaha bixiya affiliate marketing programmeska ama xitaa shirkadaha si khaasa affiliate-ka u bixiya ee adeegyadooda raba in lagu suuqeeyo internetka, wadamada ma xadidaan. waxay inta badan way ogol yihiin wadamada dunida in dhaqaale looga sameeyo. laakiin mushkiladdu waxaa weeye markaad dhaqaale samayso sidee baad ula baxaysaa, macnaha sidee baad lacagii ula baxaysaa. sababtoo ah markaad deegaanada Soomaaliya joogto in lacag lagugu soo diro hab international ahi waa shayga ugu adag. inta ugu badan shirkadaha affiliate marketing programmeska ahi waxay ku bixiyaan lacagaha sida aalada PayPal oo kale oo deegaanada Soomaalida aan la ogolayn in dhaqaale loogu soo diro. waxaa kaloo ku bixiyaan in lacagta toos bangigaaga lagugu soo diro oo bank transfer la sameeyo. taasna Soomaaliya marka la eego ama deegaanada Soomaalida kala duwan marka la eego uma muuqato mid fudud ama xitaa lagu soo gaarsiin karo. soo halkan way caqabada ugu badan ee ka hor imanaysa. haddaba haddii aan xaqiiqatan runta ka sheego, deegaanada Soomaaliya markaad joogto qaabka ugu fiican ee aad internetka dhaqaale uga samayn karto ee dhaqaalahaasna kugu soo gaadhayo ee aan anigu soo jeedinayo waxaa weeye haddii ay suuragal tahay oo aad helayso marka koowaad in uu ku caawiyo qof jooga wadamada reer galbeedka ama Maraykanka ama wadamada horumaray ee sheegta wadamada horumaray qof jooga inuu ku caawiyo. sababtoo ah qofkaas marka isaga way fududahay in lacagta loo diro kadibna qofkaas adiga lacagta kuu soo diro. waana mid aan anigu practically sameeyay markaan affiliate marketing isku dayay aan idin sheegay website hore aan isku dayay. soo haddaba haddii aad taawado affiliate marketingka adigu shaqada waad qaban, laakiin markay noqoto in lacagta lagu soo diro waa inuu jiro qof مثلا PayPal isticmaala ama bank account leh kadibna xogtiisa meesha la geliyo isaga lacagta loo diro, isagu sidii caadi ahayd wadanka lacagta loo soo gaarsiin jiray ku soo gaarsiyo isagoo xawaaladaha iyo waxyaabaha noocaas isticmaalaya. markaa qaabkaas waa qaabka ugu fiican. aanu imaado markaa qofkii aan qaabka awoodin marka la joogo deegaanada Soomaalida jooga inay affiliate marketing lacag ka soo gaadha, horta marka koobaad waa inaad ogaato inay aad u adagto internationally in lacag deegaanada Soomaalida loo soo diro. sababta waxa weeye waa systemka dawladeed ee deegaanada Soomaalida ka jira oo aan inta badan lagu badan ku taagnayn. taas ayaa number 1 ka ah waxyaabaha international payment-igu aanay Soomaaliya si fiican ama deegaanada Soomaaliya si fiican lacagahaas u soo gaareen. haddaba qofka wuxuu isku day karaa qofka rabo inuu affiliate marketing laga sameeyo laba option baan anu muuqaalkan siinaya. midka koobaad waxa weeye aalada Pioneer oo PayPal oo kale ah inuu isku dayo inuu isticmaalo. oo aalada account baan ku leeyahay deegaanada Soomaaliya ka shaqeysa. muuqaalkan ka horeeyay baan idin kula wadaagay. haddii aan daawan qaybihiisa aan ku soo saari doonaa soo kale muuqaalkan dhamaadkiisa aan ku soo muuqanaya muuqaalka qaybtiisa oo description kan ku soo diraya Pioneer isticmaal. Pioneer muuqaalkaas aan kaga hadlay asaga laftarkiisu Soomaaliya si la isugu haleyn karo ama deegaanada Soomaaliya si la isugu haleyn karo 100% ugama shaqeeyo. marka waxa weeye Pioneer tijaabi. qaabka labaad ee aan u tilmaamay waxa weeye shirkadaha affiliate marketing programmeska bixiya qaarkood waxa suuragal ah inay cryptocurrency ahaan qofka ugu siin karaan lacagta. marka haddii crypto aad helayso adeeg affiliate marketing program oo crypto ahaan kugu beegareynayana way fiicantahay. sababtoo ah cryptadu wadanna kama furna wadanna kama xirna, iyadu waa fully international. meel kasta aad joogto iyo waqti kastaba wax way lacag waa lagugu diri karaa. marka optionka ugu fiican waa Pioneer. haddaad rabto inaad xog ka ogaato muuqaalka waxaan kuu soo saaraya halkan. laakiin practically waqtigan muuqaalkan doobayo si international payment aad u hesho adoo deegaanada Soomaaliya jooga waxaad u baahan tahay inuu qof ka caawiyo wadamada jooga. haddii Asleedi Maxamed markuu warkan sheegayna sidan waa say saxda ah ee deegaanada Soomaaliya dadka jooga internetka dhaqaale uga sameeyaan, dadka YouTube-ka dhaqaale ka sameeya igu dar aniga waxa weeye dhaqaalaha YouTube-ka ka sameeyaan qof baa loo diraa wadamada jooga. qofkaas iyaga lacagta markaa dib ugu soo dira. Facebook, YouTube, TikTok, you name it, all of these services ama adeegyada internetka dhaqaalaha laga sameeyo oo dhan waxa weeye deegaanada Soomaalida ma ogola. markaan leeyahay ma ogola waxay diideen in lacag loo soo diro oo qof halkaa jooga lagu soo diro bangi halkaa jooga.
marka haddii aad isticmaasho qof wadamada jooga qofka lacagta way u dirayaan marka because haddii lacala waxay yimaadaan wadamada maadaama system dowladeed oo fadhiya ka jiro lacagta waa la dibageli karaa qofkii loo diray waa laga yaabaa in la helo in la soo celiyana lacagtaas waa suuro weyn xaggooda marka la eego laakiin xagga wadankeena ma jirto haddii aad muuqaalkan waxyaabaan ku tilmaamay aad su-aal qabto qaybta commentiga inoogu soo qor waxaan isku dayi doonaa badanka su-aalaha ugu badan aad soo qortaan in aan ka jawaabo sida ugu macquulsan insha allah marka wixii halkaas inoogu soo qorta haddaad muuqaalkan waa ka faa'iideynaa inoo like saar haddii aad waxba ka faa'iideyno inoo rajayn inoo waqti kaalamiyey